وجير باني جبتي قلبي قوير الناستي هاي جبر روح النعم لسه عمال تاكتي seriously موقتها waxaa jiro fanaaniin qaar oo markay ka jabantii ama saaxiibta xoogaa ku ciilkaan biday ama familkaaga xoogaa kugu yara kacaan ama iska ka haysto some type of stress ama madax xanuun ama depression ku haysta marag waxaa jiro heesa aad isleedahay wallahi billahi heestan exactly adiga ka hadlaysaa anigu markay xaaladaas ugu dhacday ilaahay uguma keenee straight waxa aada iskalaaji runta markaa idin sheego so when it come to the iskalaaji waxa wala dhaabo ha isciilkaan biday saaxiib ma fahanti koro ku sii qaada I love it waxa la soo diray hees oo iskalaaji leeyahay intaan ugu gadagalin iskalaaji introgeyga ma ku yara dhuftaa because maalmahan waa si yara ilooboyaay maana yara iloobin balaak waxa xasuustaa bal introgeyga ku dhufanaya yeah wara you my best beautiful people are you guys doing another beautiful day is good to be back my beautiful people ad banadi salaamaad ku meel baakooda joogta iska soo noqdo wanaagsan as you guys see the weather is so beautiful my beautiful people everything is beautiful to me yeah everything is beautiful because qalbigeyga positivity ka buuxda so that means waxa arkabo waxa u fasirtaa shay qurux badan so anyway my beautiful people hadii janaalkii concept soo dhawow oo don't forget Rahia and don't forget fikirkaaga halka in ay soo qortid wixii fikrad haysid wixii reaction this is my Instagram my beautiful people so aan ugu galno iskalaaji as you guys already know markay timaad fanaaniinta jilab culayska kan ka taageero waa iskalaaji heestan biri ka hor la soo diray waxa la dhahaa ha ii jibin ruux inacib I hope you guys ready let's go my beautiful people نصيبي يوم ما تسمين مركاد كنوع بدن نقيس يتري مدها نرش وحيتها أقو abwaanka sameeyay heestan maskaxda ilaahay siiyo ka faa'iideysay yaa nasiibka si loo la hadlaa fiirin nasiibiyo maadan qof dhaqan baa igu soo aadsaale raada idin fasirayo yaa commentigoos ku soo qoro heesana waa kala dhigdigaa I'm just joking my beautiful people but laakiin in reality erayadu habka ay ku bilaabanayeen waa iga gadmatay laakiin videoga ma aragtay liibaan jaamacu inaadir oo isku dambeynayna laakiin wasan baad let's go kaliyayna barada waqtiga nitaaqada waan mutee anta banida ila sahih jacaylada nafada nabibki xaasinka unoqon maay ogo madness I think xaaladu ka hadlay dad badan baa imikadan laga yaabaa inay ku jiraan sicilkan video ya qofka islahaayeen qofkan wanaagsan yahay ku noqday mas ilaahay idin ka bixiyo wallahi bilaa wax kale oo idin sameey karna ma lahayn ya nasiibka saa u la hadlo nothing that we can do about it but nasiibkina la hadlo but when it comes to this kalaaji especially heestan iga qoraya this song hadda soo baxday ciidiya soo baxday heestan waxay noqonaysaa another all time songs especially heestan iskalaaji sababta inay sheegaya dibnaadka ilaahay ma wada simin ya iscilkan bita especially xiligan lagu jiro waa badan yahay ya qalbiyada unba la isaga dhufta xab markaas oo intii bilaabanayso kadibna YouTube ku xigo ka bacdina iskalaaji nasiibku ka dad ilaahay ka wadi koriyo asiis cuno naftayda ay dirqiin وجير باني جبتي قلبي قوير الناستي هاي جبر روح النعم هاي جبر روح النعم لسه عمال تاكتي seriously aniga xaqiiqada marka ka hadlo iga gadan intaas azab bini aadan ahaan qof wax dareemane waan dareemay meeshan ku dareemana waxay tahay naftayday ha ii yara dirqinin beejkaas yara dhameysto naftayda ay dirqin ku jeer baadni jabti qalbi قوير الناستي هاي جبر روح النعم هاي جبر روح النعم heesa ma jiraan oo adiga erigu taabana qofka u matalayo qofka xaaladaas ku dhacda isleedahay in that way u dareemay in asiga ku dhacdo kaleeto ka timaado videogo especially heestan diiban jaamac dhalaan baa raadinaysa nothing else heestan ma u qalanto hees la socdo heestan waxay u qalantaa hees in loo fikiro loo marqaamo videogeedu bulshada xaaladahan ku dhacday markay saas u arkaan videoga iyo maqalku wada dareemi karaan laakiin ninka uu iska libisay in dhibaato ku dhacday amal mu waqti gareynayo yaa ka dambeeyo the man behind the camera has to step up waa inuu fikrad
keenaa ereyada maxaa waaye ereyada saas ma storyline soo geli barjajaxnu soo geli si bulshada kale ula connect gareeyaan oo u dareemaan alla ilaahay ninkan dhibaatada waa ku dhacday loo dhihi karo laakiin uu soo libista suudkiisa banyata videogii heesta mis galaano runta idin sheegaya videogii heestis ma galaano videogu qurxan yahay in qurux oo waxa ah malaayacni markay timaado heestan ma soo saarayso heestan waxa soo saarayo sa idin sheegabo in darjajax loo soo geliyo qof kale to dumar la raadiyo dii la heli karo ama ku daadinayso qofka bini'aadamka markuu saas u daawado haduusan heesta macnaheeda fahmaynin oo dhihi karo alla ilaahay maskinkan dhibaata ku dhacday oo qalbiga ka dareemi karo meesha kaliya oo la iska wada dareemo waa qalbiga luqadna lagu dareemin waa qalbiga ma fahanteen taas hadaan ka faa'iideyso waysin aqaan say this video is banyata markay timaado heestan ma soo saarin barada laakiin isklaaji brada well done yani de waxa ay tahay xagga jaceelka ee Dr. Love baa ay tahay ma fahan meesha kaliya dhageysto is isklaaji so anyway my beautiful people like my video kusoo gabagabeyna I hope ina ka wada hesheen so see you the next episode my beautiful people